أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، meel walba aad joogtaanba waxaan idiin soo gudbin doonaa insha allahu tacaala mowduuc qiimo badan. waxaan idiin soo gudbin doonaa ducooyinkii nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam oo jaamica ahaa oo kulmihayay adduun iyo aakhiro. wax allaala wixii aad u baahan tahayba aad ka helaysay. ducadu qiimo badan ay leedahay. ducadu waa mu'minka hubkiisa. mu'minka hub la-aan waaye haddii uusan ducooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uusan aqaanin, yacni uu ku ducaysan jiray. haddaba walaalayaal, qofku inuu duceysto oo wax allaala uu ku duceysto way u bannaan tahay, laakiin waxaa usii fadli badan inuu ku duceysto ducooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi. dadka ku xidhan boganaga qaar ka mida, maadaama ay ina soo weydiiyeen ducooyinkan dhowr jeer oo dhowr su-aaloodba la isoo weydiiyey, waxaan jeclaystay inaan maalin walba oo khamiis maanta oo kale aan idiin soo duubo oo idiin soo geliyo bogga si live insha allahu tacaala, sidii aada uga faa-iideysataan mowduucan ahmiyadda khaaskaa leh insha allahu tacaala. ducada ugu horeysa oo maanta aan qaadanayno oo ka mida ducooyinka nabiga ka sugnaaday oo jaamica calayhi salaatu wasalaam: allaahuma rabbana aatina fi ddunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar. ilaahow adduunyana xasana nagu sii, aakhirana xasana nagu sii, cadaabkaadana ilaahayow naga badbaadi, naarta cadaabkeeda ilaahow naga badbaadi. waa duco qiimo badan. waa duco nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay. waa ducooyinkii nabiga uu ku ducaysan jiray. ducada ugu badan, sida anas uu leeyahay, wuxuu leeyahay kaana akharu ducaai nabiyi calayhi salaatu wasalaam allaahuma rabbana aatina fi ddunyaa xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar. ducooyinka nabiga uu ku ducaysan jiray, ducada ugu badan waxay aheeday allaahuma rabbana aatina fi ddunyaa xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar. ducada labaad oo maanta aan soo qaadahayno oo ducooyinka jaamica nabiguna uu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin. ilaahow adiga maahana ilaah kaloo xaq lagu caabudo ma jiro. subxaanaka, ilaahow adigaa ceeb ka fog. innii kuntu min aldaalimiin, anigu waxaan ka mid ahay dadka daalimiinta ducadaani waxaa loo yaqaanaa ducadii waxaa weeyaan yunis ibnu mataa ambes dinnuun uu ku ducaystay oo ilaahay uu baryay markii uu macnaha malaygii dhexdiisa asigoo ku jiro. fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aldaalimiin ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala asigoo ka sheekeynayo. dinnuun wuxuu ka naadiyey mugdiyaalo dhexdooda. baddii dhexdeeda ayuu ku jiray. badda waa mugdi. calooshii malayga dhexdiisa ku jira waa mugdi kale. yacni malaygii riwaayooyinka qaar sida ay tilmaamayaan malaygiyaa malay kala sii liqay. marka mugdiyaalo fara badan dhexdoodii ayuu ka dhawaaqay. asagu wuxuu leeyahay laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aldaalimiin. markii ilaahay uu ku baryo ducadaasi, natiijadu maxay noqotay? natiijadu waxay noqotay walaalayaal in ilaahay subxaanahu watacaala uu ajiibo sida ugu dhaqsiyaha badanne. ilaahay wuxuu leeyahay fastajabnaa lah wanajaynaahu min alqami wakadalika nunji lmu'miniin. waan ajiibnay murugadii iyo walwalkii iyo walbahaarkii oo haystay, waan ka badbaadinay. saas oo kale ayaana dadka mu'miniintana u badbaadin doonaa. fa-du waxay faa-iideynaysaa walaalayaal oo fastajabnaa ilaahay yidhi tacqiib, isla markii durbadiiba horaan ka ajiibno ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala wanajaynaahu min alqami wakadalika nunji lmu'miniin. dadka mu'miniinta oo dhibaataysan oo ducadan ku duceystana sidaas ayaan u badbaadi doonaa how ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. xadiiskii laga wariyey sacd ibnu abi waqaas ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dacwatu dinnuun idaa iddacaahu wa huwa fii badni alxuut. ducadii dinnuun oo uu ku ducaystay asigoo ku jiro malaygii calooshiisa oo laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aldaalimiin. wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam
فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. qof rajul muslim qof muslim oo ku ducaysto ma jiro ducadan oo shay walwalgeliyo awgiis ugu ducaysta ilaa ilaahay waa ajiibaa tabaaraka wa tacaala. haddaba ducooyinka ugu qiimaha badan ayay ka mid tahay. ducada saddexaad oo maanta aan soo qaadanayno waxaa ka mida walaalayaal oo ka mida ducooyinka nebiga uu ku ducaysan jira oo jaamica ahaa: allaahuma kfir lii warxamnii wacaafinii warsuqnii ayaa ka mid ah, oo macnaheedu yahay ilaahayow ii dembi dhaaf, ilaahow ii naxariiso, ilaahow i caafi, ilaahow i arsuq. ducadaasi weeyaan. ducadaasi nabiga ka sugnaata calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka wariyey abi maalik al ashjaci, wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhahay: allaahuma kfir lii warxamnii wacaafinii warsuqnii faina haa-ulaa'i tajmacu laka dunyaaka wa ukhraak. allah allah allah. wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, ducooyinkan oo ducadan hadda allaahuma kfir lii warxamnii wacaafinii warsuqnii waxay kuu kulmihaysaa adduun iyo aakhiro. haddaba ma doonaysaa adduun iyo aakhiro inaad ku liibaantid? hama ogaanin ducadaasi nabigu uu ku ducaysan jira calayhi salaatu wasalaam inaad ku ducaysato. ducada afaraad oo maanta aynu soo qaadan doono waxaa ka mid oo nabiga ka sugnaada calayhi salaatu wasalaam: allaahumma acinnaa calaa dikrika wa shukrik wa xusni cibaadatik. ilaahow noogu kaalmay shukrigaada iyo dikrigaada iyo cibaadadaada wanaageeda. ilaahay noogu kaalmay. waa duco qiimo badan. waa duco nabiga ka sugnaata calayhi salaatu wasalaam. min xadiiskii abi hurayra ayuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam: ma jeceshihiin inaad ku dadaashaan ducada? markaasi waxay nabigu uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam: quuluu dhaha allaahuma acinnaa calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik. ducadaasi macnaha ku duceysta uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. haddaba qof allaala qofkii doonaya ducada inuu ku dadaalow dardaarankaasi nabiga qaado calayhi salaatu wasalaam. haddaba walaalayaal, ducadaanu aad bay u qiimo badan tahay. maalin maalmaha ka mid ahaa nabigu ku yidhi anas ibnu maalik ilaa mucaad ibnu jabal cafwan ayuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam: mucaadow waa ku jeclahay. ayuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam: ee ha hilmaamin inaad salaad walbo ciribteeda dhahdid allaahumma acinnaa calaa dikrika wa shukrik wa xusni cibaadatik. inaad tidhaahda hilmaamin ayuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. haddaba walaalayaal, waxaan isku dardaarmaynaa inaan ka faa'iidaysano ducooyinkan qiimaha badanneh. waxaan isku dardaarmaynaa inaan faafinno oo dadka aan jecelnahay oo axbaabtayna aan gaarsiino ayaan isku dardaarmaynaa. ilaahay dartiisaan idin jeclahay dhammaantiinba. intii aan ku kulmi doono mowduucan qiimaha badanna mowduuc lamid ah khamiista soo socoto, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. kullu caam wa antum bikhayr. sanadkan inoo bilowday, ilaahay waxaan weydiisanaynaa sanad khayr iyo barako iyo wanaag iyo barwaaqo inuu ilaahay ka dhigo subxaanahu wa billaahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.